mudaharaad ballaadhan oo dadweyne gaduudsan kaga caabinayay biyo-la'aanta ka dhacday caasimadda hargeysa oo labadii habeenee u dambeeyey kadib markii biyooyadihii biyaha dhaamin jiray ay joojiyeen dhaamiskii ayaa saaka ka dhacay gudaha magaalada hargeysa oo markii hore uu biyo-la'aantu naafaysay waxaanay kumanaan qof oo la gaduudsan diihaalka haraadku kala xidheen dariiqa isku xidha madaarka hargeysa iyo caasimadda jidka u dhexeeya madaarka hargeysa ilaa hotel star iyo jidka dheer ee degmooyinka maxamuud haybe axmed dhagax ayaa mudaharaad ballaadhan oo qiiqaya dhaguxu hadheeyey isla ogsideen guud ahaanba dariiqyadaasi waxaana dadweynahan gaduudsan ee haraadka iyo onkadka biyo-la'aantu saameyn culus ku yeeshay ayaa isku soo bax ballaadhan ka sameeyey arrintaasi waxaanay sheegeen xukuumadda kulmiye ay ku fashilantay ilaa hadda inta la ogyahay waxaa ku dhaawacmay 3 qof sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaala goobtaasi uu ka socday mudaharaadku ayaa waxaa soo gaadhay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Maxamed Waran Cadde iyo taliyaha booliska oo isku dayay in xaaladda dejiyaan balse waxa ku gacan saydhay shacabkii mudaharaadka sameeyay haddaba mudaharaadkaasi waxa u dhacay sidan intaas daawadayaal waxaan ku soo gabagabinaa barnaamijkan idinka soo diyaarinay mudaharaad ballaadhan oo dadweyne gaduudsan kaga cabanayeen biyo-la'aanta ka dhacday caasimadda hargeysa oo labadii habeenee u dambeeyey kadib markii booydihii biyo dhaamin jiray ay joojiyeen dhaamiskii ayaa saaka ka dhacay gudaha magaalada hargeysa tani barnaamijkan oo kale ku kulmi doona waa anigoo maxamed aadan ismaaciil ah